ogaada dhiigeedu waa hadur wax ka soo qaad male wax ma garanaysaa waxa ugu daran ee maanta gaalada ka cadhaysiinaya ee ciil gelinaya oo ciil awgii dibinta inay ruugaan sabab ugu noqonaya ma garanaysaan waxa hurdada inay ku ladi waayaan sababaya waxa jiif iyo joogba u diidaya ma garanaysaan ma aha inay muslimiintu bataan oo qura ma aha inay muslimiintu dhaqaale helaan oo qura ma aha muslimiintu hubka wax gumaada inay gacantooda geliyaan eray baan odhanayaa gaalada iyo cidda u haysata inay islaamka muquunin karayaan qaar badan oo muslimiina baa jira ducafaa'u nufuusi wal uquul ah aqligooda iyo naftooduna liidato dad aan caga badan ku taagnayn oo u haysta inay gaala xarkaa soo goosato islaamka burburinayso walaalayaal khudbadaheennani waxay ku saabsan yihiin inaynu ka jawaabno dhacdooyinkii ayaamahan dhowaa dhacayay ee gaalada reer Yurub ka imanayay iyo caalamka gaalada waxaynu ogeyn sanado xoogaa ee ka hor inay dowladaha Scandinavian-ka iyo saxaafadoodu isku raaceen in nabiga calayhi salaatu wasalaam wax laga sheego oo la ceebeeyo la caambaariyo wax iska caadi iyo xorriyada ay tahay tii kumay daynina wali way sii wadaan bariga hore shakhsiyaad baa bilaabay laakiin hadda waxaynu arkaynaa dowladihii iyo baarlamaanadoodii iyo shucuubtii baa isku raacay taa idan in laga jawaabaa waa xaq weeye waana waajib waxaanay ka turjumaysaa jacaylka inuu nabiga u qabno calayhi salaatu wasalaam iyo iimaankeenna iyo inuu inagu weyn yahay cidda kugu weyn marka meel lagaga dhaco ismahana tidoo ayar iskama fadhiisatid waxaynu ognahay maanta qofka meel laga dhace saxaafadda laga caayo ama qabiilada wax laga sheego ama qaramadan la sheego mid ka mid a haddii wax laga sheego تقوم الدنيا ولا تقعد الدنيا دو استاكتايو قولوا وليبا way soo kaakacaano meelahaas ay soo fariistaan mudday daldalmaan oo ay hadlaan waayo qofku isaga isku weyn qabiiladiisuna way ku weyn tahay qoladiisa qarankiisuna waa ku weyn marka hadii dadku ay ka aamusaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay ka hadlaan arrintiisa ay u heeliyaan waanu ku weynayn ba ka dhiganta kama xanuunsatid wixii aan kugu weynayn wax ma garanaysaa waxa ugu daran ee maanta gaalada ka cadhaysiinaya ee ciil gelinaya oo ciil awgii dibinta inay ruugaan sabab ugu noqonaya ma garanaysaan waxa hurdada inay ku ladi waayaan sababaya waxa jiif iyo joogba u diidaya ma garanaysaan ma aha inay muslimiintu bataan oo qura ma aha inay muslimiintu dhaqaale helaan oo qura ma aha muslimiintu hubka wax gumaada inay gacantooda geliyaan waxa ugu daran ee gaalada arrimaha sheegay sabab ugu noqonaya waa muslimiintu diintooda inay ku toosnaadaan waayo dhab ahaan waxay og yihiin waxay muslimiintu ku gacan sarreynayaan cizada iyo sharafta iyo sarreynta iyo hogaaminta ummadahana hore ay ugu heleen haddana hadday ku sifoobaan ay ku helayaan inay tahay inay diintooda si dhaba u qabsadaan oo ay bartaan ku camal falaan isku xukumaan oo dadka ay ugu baaqaan oo xil ay iska saaraan arrinkaasi ayaa arrinka gaalada ugu culus walihaada gaaladu waxa ugu daran ay ku dadaalaan waa maxay ee ay jecel yihiin hadduu dhacana ay ku farxaan inay muslimiinta diintooda ka fogeeyaan oo barashadeeda ay ka jeediyaan oo ku dhaqankeeda ay ka fogeeyaan oo isku xukumkeeda ay kala dagaalamaan waa kuwa maanta inoo soo waariday nidaamyada mabaadi'da qawaaniinta iyo xeerarka diinul islaam ka hor imanaya ee inagu khasbay mararka qaarkoodna ina jeclaysiiyey inaynu diinul islaam ku bedelano atastabdiluuna alladii huwa adnaa billadii huwa khayr ilaahay baa yidhi wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan sida iyagu u gaaloobeen dabeetana aad noqotaan kuwa gaalnimada ku sugan ka siman shaqadii ibliis bay hayaan ibliis markuu ilaahay kufri iyo naar u xukumay
wuxuu jecel yahay dadkoo dhami inay gaaloobaan naartana ay la galaan gaalana shaqadiisii bahayaan arrinka saddexaad oo nebi maxamed aynu ugu hiilinayno oo arrimaha aadka u waaweyn ka mid a oo ay tahay qof kastoo muslimi guud ahaan inuu ku baraarugo gaar ahaanna maalmahan inuu aada ugu fiirsado waa gaalada inaynu ku samayno muqaataca gaalada inaynu ka go'no mabaadidooda qaanuunadooda dhaqamadooda caadaadkooda isu ekaysiintooda waxaasoo dhan inaynu ka fogaano isma qabanaysa ayuha almuslim inaad tiraa nebi maxamed baan jecelahay oo qofka caaya ama aflagaadeeya ama wax ka sheega waa nacaya haddaan gacan la gaari karayana qoortaan ka jari lahaa haddana kii nebi maxamed caayayey mabaadidiisi adigu aad aaminsantahay oo aad aaminsan tahay calmaaniyada lafteedii oo aad diinta iyo adduunyada in la kala saaro oo diintu aanay xukumin dadka noloshooda oo aad aaminsan tahay adigu dimuquraadiyadda oo ah inuu xukumka uu iska leeyahay shacabku inta badani dhinacay martaa mar walba inay xaq tahay sharciga ilaahay ha waafaqaan amabase ha khilaafaan ood gaalada iyaga ku dayanayso aad soo ekaysiinayso siday u labistaan aad u labisanayso oo siday u xiirtaan aad u xiiranayso qofku cidduu necab yahay suma ekaysiyo kumana daydo wixiisana ma soo dhawaysto wuu tuuraay wuu ka fogaadaa haddii colaaddu ay ka dhab tahay haddaynu necabnahay kuwa nebi maxamed caaya kuwa aflagaadeynaya kuwa sawirada foosha xun ka bixinaya waxa iyagu ay jecel yihiin ee ay ku dadaalayaan inaynu qaadano oo aynugu dhex faafiyaan waxaasi aynu ka tagno waxaasi aynu goyno in aynu xidhiidhka dhaqaale u jarro waxaa ka weyn inaynu xidhiidhka xagga mabaadida aynu u goyno waxay nagala dagaalamayaan diinulislaam inaynu isku xukumno haddaad necab tahay gaalada nebi maxamedna aad jeceshahay ku dadaal diinulislaam dhulka inay xukumto sida ila yihi wa an ilxukmu ila lilah in ilxukmu ila lilah xukum ilaahay baa kelidii iska leh wa an ixkum baynahum bima anzala allah isma qabanayso gaalada ayaa necebahay nebi maxamedna waan jecelahay markay aflagaadeeyaanna waan ka xanaaqaya waan dhibsanaya haddana ma jeceli kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga dalka iyo dadka in lagu xukumo maxaa lagu xukumayaa waxaa lagu xukumayaa mabaadida casriga mabaadida casriga waa tee makaroon iyo kuwa lamidkaa iyo awowiyaashi waa taa ay samaysteen ee diinulislaam didka ku ah ee ka soo horjeeda inay u arkaan inay tahay arrin cusub la wax ka weyn bay samaysay gaalo shareecadanna way bakhtiin kari waayeen yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurih waxay doonayaan inay afkooda ku baktiyaan ilaahay diintiisa iyo tawxiidkiisa iftiinka iyo nuurka alleh ilaahayna uu diiday inuu dhammaystiro diintiisa mooyaane wax kale waya'ba allah ila an yutima nuurah ilaahay waa diiday inuu iftiinka dhammaystiro waxaan ahayn subxaana wa tacaala sidaa daraaddeed gaalo ilaahay iska celin kari mayso qumbulo duriye iyo dabaabad kastay kiciyaan faquwat llahi aqwa min quwati kuli axad ilaahay awooddiisa awood kasta ka weyn maanta waxaa ka dhacaya dunida dalka faransiiska iyo duni kaloo gaalaaba ma aha shay inagu cusub waa arrin noo kordhinaysa yaqiin iyo caqiidadeena inaynu noolayno kalsooni buuxda ku qaadano shareecadeenu inay tahay hiya alxaq ta xaqa inay tahay inaynu hore u soconno inaan dib u laaban gaalo waxay go-aansatay yurub iyo wixii ay cagaha ku qaadataa inay islaamka ku baktiyaan waddamadooda ilaahayna guryahoodii buu ugu geeyey subxaana wa tacaala islaamkay ku weerareen waddamadooda ayaa ilaahay iyaga guryahooda ugu geeyey subxaana wa tacaala isagoo ilaahay tusaya inuu yahay casiis facaal limaa yuriid mid wax kasta samayn kara faransiis maanta dunida reer galbeedka iyo waddamadooda waddanka ugu islaamida badan wey weligiiba colaad kastuu muujistaa shareecada jacayl bay u kordhinaysaa dadku jeclaadaan oo quluubtooda ay gasho ilaahay baa diintiisan ilaashanaya isagaana kor yeelaya shareecadu cidna uma baahne innagaa shareecada u baahan nebigu idifaaci noogama baahna ee innagaa nebiga jacaylkiisa u baahan salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh maxaa yeelay ilaahay baa sharfay oo ciseeyey